Daisy Ashford waxay caan ku ahayd qoridda sheekooyinka mala-awaalka. Inkastoo ay nooleed ku dhawaad 91 sano, waxay qortay hal sheeko oo keliya marka laga soo tago sheekooyinkeedii gaagaabanaa. Laakiin tani maaha ciwaanka mawduuceena, maadaama adduunka uusan ka hadlin qoraayada noloshooda u hibeeyey inta ay nool yihiin halka shaqo. Taasina waa sababta ay caanka u noqdaan, noloshana guusha ugu gaaraan. Laakiin waxa la yaabka leh ee sheekada Daisy ayaa ah in ay soo saartay sheekadeedii koowaad iyadoo 4 sano jir ah, waxayna qortay sheekadeedii ugu horeysay uguna dambeysay markay ahayd 9 sano jir. Inkastoo ay ahayd fasalka 3aad ee dugsiga hoose, waxay ku qortay buuggeedii ay iskuulka ku baranaysay iyadoo ku qortay gacanteeda. Nasiib xumase, cidna kama qaadin gabadha yari waxa ay qortay waqtigaas. Si dhaqso ahna waa loo ilaabay, waxayna ku aaseen buuggeedii sanduuq alwaax ah oo yaalay guriga Daisy. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah, sanadkuna uu yahay 1917, Daisy da'deeduna ay ahayd 36 sano jir, ayadoo diyaarinaysa alaabta reerkeeda ayay waxay aragtay sanduuq alwaax ah oo ay ku jiraan dhammaan qoraayadii ay qortay carruurnimadeedii. Sidaas daraaddeed aad ayay u faraxday, waxayna guda gashay in ay akhriso sheekooyinkeedii. Daisy waxay tiri, dabcan maskaxdaydu waan ka yaabay markii aan ogaaday in sheekooyinkaygu ay yihiin kuwo la yaab leh oo ay mudan tahay in la akhristo, gaar ahaan sheekadii mala-awaalka ahayd ee aan qoray markaan 9 jirka ahaa, magaceeduna uu ahaa Young Visitors, taasi oo ka hadlayso nin 42 jir ah oo la yiraahdo Alfred, kaasi oo ku dadaalo qaab dhismeedka taariikh nololeedkiisa barashada xukunka si uu ugu guuleysto jaceylka gabar yar ee la yiraahdo Ethel. Laakiin wuu ku guul dareystay. Ethelna waxaa guursaday saaxiibkiisa Bernard. Daisy waxay buuggeedii amaahisay saaxiibadeed oo isbitaal ku jirtay si ay iskugu mashquuliso akhrinta buuggaas ilaa ay ka caafimaadayso. Saaxiibadeedii waxay buugaagtii u sii dhiibtay dhammaan asxaabteeda. Waa ay la yaabeen buuggii ilaa ay ugu dambeyntii gacanta uu kaga galo buugga qoraa sheeko, sidoo kalena ah wax daabace, magaciisana la yiraahdo Frank Sanderton. Wuxuu go'aansaday in uusan daabicin sheekada oo keliya, laakiin uu u bandhigi doono akhristayaasha. Arrinta la yaabka leh ayaa ah in ay sheekadii la kulantay guulo aan caadi ahayn. Markii ugu horeysay ee la daabacay waxay ahayd 1919. Waddamada Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa dib 18 jeer loogu daabacay sanadkii 1920. Sababtuna waxay ahayd caannimada sheekada. Buugga markii ay ogaadeen akhristayaasha in ay qortay gabar 9 jir ah, sidoo kale markii ay arkeen tayada buugga, qaar ka mid ah akhristayaasha ayaa shakiyey, iyagoo dhaleecayn soo jeediyey. Waxay u qaateen in uu sheekada qoray qoraa weyn oo khibradle ah. Inkastoo ay midaasi tahay guul weyn iyo caannimo, Daisy Ashford wax kale ma aysan qorin nolosheedii oo aan ka ahayn sheekooyinkaas oo ay qortay carruurnimadeedii. Laga yaabee in ay hilmaamtay hibadii ay lahayd. Daisy Ashford waxay nolosheeda inta hartay siisay ninkeeda iyo 4 carruur ee iyadu dhashay ilaa ay ka geeriyootay sanadkii 1972. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Sidoo kale waxaan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aadna siisay. Waxaana inoo balan ah muuqaalkan kan xigo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.